مدحوينها جمهورية Somaliland مدن أحمد محمد محمود سيلايو iyo wabtuu hogaaminayo ayaa waxa ay saaka safar uga anbabixeen magaalada Berbera ee xarunta gobolkaasi Saaxil halkaas oo uu tababar ugu soo xidhay dubcadii saddexaad ee ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland مدن مدحوينه waxa saantada u diyaar waa cutub ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland saldhiga Berbera mudane madaxweyne ku soo dhawow sidoo kale waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland shir kula qaatay saraakiil ka socda wadankaas Ingiriiska gudaha markab dagaal oo laga leeyahay wadankaasi hadaba waxa warbaahinta halkaas kula hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne maanta waxa farxad weyn noo ah ciidanka ilaalada xeebaha inaad nagala soo qayb gashid xiritaanka tababarada sanadlaha ah ee ay nasiyaan ciidamada ka tirsan dalka Ingiriiska ee Royal Marineska ee saaran markab la yiraahdo Cardigan Bay waa sanadkii saddexaad ee ay tababarada caynkaas ciidamadaas nasiyaan waa tababar adiga kula koobsadeen ka horreeynin oo ku yimi siyaasadda xukuumiga ee ku wajahan dhismaha ciidanka ilaalada xeebaha intaas kadib markii uu madaxweynuhu kula qaatay markabka dushiisa saraakiisha ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay caasimadda Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland waa Nuux Kadiye Raya TV Boorama